waxaynu u baahannahay qiraa'ada markaynu leenahay wax akhri. marka hore qofku qiraa'ada uu bilaabayo way ku dhib badan tahay. maalmaha hore waa daal miidhan. waxay u baahan tahay inaad qiraa'ada si macquula u bilowdid. waxaad u baahan tahay inaad mumaarasa ku celcelinaad heshid. waxaad u baahan tahay kutubtaad akhrinaysa inay mustawahaaga tahay. haddaad kitaab kaa weyn isku rarto kutub culammada loogu talagalay fatxulbaari haddaad tidhaahdo qiraa'a ka bilow waxba ka keeni maysid. fatxulbaari ardayna looma qorin waa kitaab culamo loogu talagalay. idan kitaabka aad rabto inaad akhridaa inuu mustawahaaga yahay. waayo ninka kaatibkii markuu kitaabka qorayo dab gaar ugu talagalaa maaha kitaabku iska obin qof waliba u akhriyo. waxyaabaha fududaynaya inaad wax akhrido markaa waxaa ka mida baynu leenahay kow inaad ilaahay tala saaratid. laba, dadka aqoon-yahanka inaad la tashatid ee sabjiga kan ama fanniga kan kaaga aqoonta badan leh. saddex, inay mar kasta maskaxdaada ku jirto dadka dadaala iyo wax soo saarkooda iyo dadka iska fadhiya iyo wax soo saarkooda. haddaad maalin kasta 3 saacadood tv daawato marka la isku dardaro waa imisa waa kumankum saacadood bay noqonayaan. laakiin maxaa ka soo baxaya? alxaasil waa ibir waxba ma jiraan. laakiin haddaad wax akhrinayso 3 saacadood maxaad u malaynaysaa maxaa ka soo bixi lahaa? yacni cabqari adduunka aqoon-yahanka ugu weyn baad noqon kari lahayd. haddaad maalin kasta 3 saacadood wax akhrinayso encyclopedia guuriyaad noqon lahayd. qof wax walba la weydiiyaad soo bixi kari lahayd. wax akhrisku wuxuu kale u baahan yahay kow taqyiid alfawaa'id waxay culammadu yidhaahdaan. buuggaad akhrinayso lama xifdiyi karo inta badan qofku waxbuu ilaabaa. waxay u baahan tahay waxaad ka faa'iida inaad qorto. laba qaab dadku mid unbay isticmaalaan. ama buugga laftiisay jaldigiisa ku qoraan intay soo rogaan jaldiga bage walba wixii uu ka akhriyey. ama cards bay samaystaan ay wax ku qoraan. ama notebook uu iska sito oo ku talagalo buug kasta uu akhrinayo wixii uu ka faa'iiday inuu qoro. weliba waxa fiican iyadoo mufahrasa inaad qoratid. yacni iyadoo funuunta u qoran. waxaad buugan ka faa'iiday masaa'il fiqiya ahayd inaad fiqiga ku darto. hadday masaa'il science ahayd inaad bejka science ku darto. hadday masaa'il taariikhiya ahayd inaad meesha taariikhda ku qorto. fawaa'idda inaad mid walba gaarkeeda aad u qortaba ku fiican tahay. waxaa kaloo fiican siiba wakhtiga wax la baranayo buug kastoo aad akhrido ishkaalaad iyo madmadowba kaaga soo baxaya iyo masaa'il aad hore u fahmi weyday. inaad qortid masaa'ilka aad fahmi weydo oo aad markaasi kula noqoto ama kutub kale iyo buuga kaloo aad ka baadhayso ama murshid aqoon-yahan aad ku tiirsan tahay oo fanniga kanaad wax ka weydiiso ama calal aqal sheekhan cusub ee iminka dunidu wax weydiiso. sheekh google sooma taqaaniin ogle haddaad ku dhufato jawaab kasta waad soo helaysaa tiro badan leh. marka aqalu shay inaad isku daydo mas'aladii kaa hortimi ama mushkiladii ku qabsatay inaad dib u baxtii karto. waxaana ugu fiican haddii subjectskaasi aad akhrinaysa aad u leedahay qof murshida aqoon-yahan kaa roon. waayo culammadii hore waxay odhan jireen alcilmu makhzuunun fii butuuni alkutub wa mafaatixuhu biaydi alculamaa bay odhan jireen. waxaa la odhan jiray cilmigu wuxuu ku khasmadaysan iyo ku duuduuban yahay kutubta dhexdeeda ayaa makhfino oo lagu xidhay. stoorku waa halkaa furayaashana culammada ayay odhan jireen. ninka caalimkii wuxuu ku barayaa how to read iyo waxaad akhriyaysa sidii aad u fahmi lahayd. idan waxay ku fiican tahay inuu qofku cid uu ku xidhma inay jirto. waxay kaloo ku wanaagsan tahay qiraa'adu inay tadaruj yeelato, koritaan inay yeelato. marka hore kuwa fudud inaad ka bilowdo sabject kasta oo aad bilaabayso meel fudud inaad ka bilowdo oo da'daada iyo fahamkaagu ku salaysan dabeetana aad korto. haddaad qiraa'ada ku celceliso
faa'iidadu way ka badataa sidii hore. yacni buugaad mar akhriday ama kitaabaad mar akhriday haddaad second time akhrido waxaad markii hore ka fahamtay wax ka badan baad fahmaysaa. walidalik baa adiibkii weynaaye masriga caqaad la odhan jiray baa wuxuu yidhi 3 buug oo fiican inaad akhrido waxa ka sii fiican buu yidhi buug fiican inaad 3 goor akhrido. yani 3 buug oo fiican inaad 3 dama dul marto waad ilowdo. caqaad wuxuu leeyahay waxa ka fiican buug fiican inaad 3 jeer akhrido. waxa kaloo waxyaabaha qiraa'aadka fahamka kordhiya ka mida siiba dhallinyarada marka la yahay in qiraa'a jamaaciya la yeesho. dadku inay naadiye qiraa'aad yeeshaan club oo ama buug la isu diro maalan 10 chapter uu ka kooban yahay qofba inuu chapter soo akhriyo dabeetana la isu wada akhriyo la isu sheego. waayo waxay keensanaysaa chapterka haddii lagaa sugayo inaad si fiicanna u soo akhrido si fiicanna u fahamtid khulaasadiisiina inaad qofka kale u gudbisid kuwa kalena khulaasadii samarigii buuggoo dhan inaad si fudud u heli kartaan. aqoontiiyo dadku isweydaarsanayo balliquu canii walow aayadii oo dhacayso dadkiiyo wax isgaadhsiinaya. waxa kaloo fiican bay dhahaan dhallinyaradu inta badan ariiqatulimtixaan qiraa'adkooda inay ku daraan inay wax iska weydiiyaan. hebel buugga ma akhrida haa dabeetana la iswarsado oo wax la iska weydiiyo. waktiga daraaddii masaladaan ugu dambaysiinaya waxa weeyaan inay akhridaan dadkii waaweynaa biografigooda. masaladan aada ugu fiirso si himmadaadu ay u kacdo oo ku dayashadaadu ay u fiicnaato oo qiraa'o waxtarle aad u akhrido inaad akhrido dadka nawaabiqda ah ama dadka roonroon ee aqoon-yahankii dunida soo maree la yaqaanay ama muslim ha ahaado ama gaalba ha ahaado aqoon-yahanka rasmiga ee la yaqaanay biografigooda inaad akhrido. amhilaan idin siinaya marka weliba amhilo islaamiya aan idin badiyo. alkhatiib albaqdaadi raxmat ullaahi calayh sheekhii la odhan jiray khatiib albaqdaadi oo baqdaad jooga ayaa safar waxaa ku soo baxay sheekh la odhan jiray ismaaciil ibnu axmed adariir oo nisaabuur dad ka yimi buu la socdaa. makay ku socdaan baqdaad bay soo mareen. waxaa ogaaday alkhatiib albaqdaadi baa ogaaday inuu magaalada joogo ismaaciil ibnu axmed adariir. marka isaga iyo culamo kaloo wada socotaa u timi waxay ku yidhahdeen waxaanu rabnaa kitaabka bukhaari inaanu kugu dul akhrino oo aad noo saxdid. kitaabka bukhaari weynaad taqaanin waa 4 majalladood meelahaasi. nin safaroo socota abaa lagu dul akhrinayaa. ninkan safarkee socotada waxaa loogu dul akhrinayaa sanad caaliya buu haystaa oo bukhaari raawiga rasmiga kitaabkiisa wariya alfarabri waxaa ka wariyay isna kushmihani buu isagu ka sii qaatay. bacda almaqrib bay u fadhiisteen. khatiib albaqdaadi baa akhrinaya kitaabka culamada kalena way dhegaysanaysaa sheekhuna wuu tasxiixinayaa. dabeetana maqribkii baa la bilaabay ilaa iyo salaadii subax baa la akhrinayay waa la kala tegey. kitaabka bukhaari weynaad taqaanin waa 4 majalladood meelahaasi. nin safaroo socota abaa lagu dul akhrinayaa. ninkan safarkee socotada waxaa loogu dul akhrinayaa sanad caaliya buu haystaa oo bukhaari raawiga rasmiga kitaabkiisa wariya alfarabri waxaa ka wariyay isna kushmihani buu isagu ka sii qaatay. bacda almaqrib bay u fadhiisteen. khatiib albaqdaadi baa akhrinaya kitaabka culamada kalena way dhegaysanaysaa sheekhuna wuu tasxiixinayaa. dabeetana maqribkii baa la bilaabay ilaa iyo salaadii subax baa la akhrinayay waa la kala tegey. habeenkii dambe maqribka laysu yimi ilaa iyo salaadii subaxi kale la akhrinayay. sheekhi laakiin wuu safraya. subaxii dambea loo yimi barqadii baa la bilaabay ilaa iyo maqribkii baa la waday. maqribkii baa haddana la waday ilaa iyo salaadii subaxii dambea la waday. intaasaa waxaa lagu dul dhameeyey 4 volume. kitaabka bukhaari dhammaantii weliba
qiraa'adu akhrinaya waxaa la yidhahdaa qiraa'o degan oo la rabo dadkan kale kutubtooda inay saxdaan. qiraa'ada lagu sheegay waxa weeyaan rag baa kutub wada sita, kitaabkiisa saniinaan wax qaladi ku jirin buu rabaa inuu saxdo. sheekhan xaafidka ah baa laga saxanaya oo kitaabka haya, kani wuu akhrinaya, markaa sheekuna wuu dhegaysanaya, kuwana kutubtaa la saxanaya. marka waa qiraa'o la wada dhegaysanayo, dadkao dhan wada dheg yahay oo la soo jeedo. salaad maqrib ilaa salaad subax, salaad maqrib ilaa salaad subax, barqadii dambe ilaa iyo salaada subaxee dambe, inta ka dhexle ayaa bukhaari lagu dhameeyey. imaam ibn alxajar alcasqalaani ayaa la weydiiyey arrinkaas, maalinna sheekh adiga ma kugu dhacday baa layidhi niwaaga berigiisii ilaa gabalka dhinaciisii inaad wax akhrinaysay, maalintii oo dhan inaad wax akhriday? markaasuu wuxuu yidhi maya, laakiin aniguba kitaabka bukhaari markaan sheekha ku akhrinayay 10 majlis baan ku akhriyay buu yidhi, 10 fadhi oo aan la fadhiistay sheekha ayaan ku dhammeeyey. ee fadhiyadaydaa kala googo'naa buu leeyahay, haddii 10ka fadhi laysku dari lahaa wuu ka yaraan lahaa intii uu ku akhriyey khatiib albaqdaadi. 2 maalmood iyo badbu isna ku akhriyaa layidhi marka laysku daro wakhtiguu gaadhayay. markaasuu intuu sii hadlay buu wuxuu yidhi laakiin qiraa'adaydu maxay ka gaadhaysaa tii khatiib albaqdaadi marka laga eega buu yidhi xagga sixada iyo wanaagga iyo faa'iidaynta iyo gaadhsiinta dadka kale u gaadhsiinaya la dhegaysanayey. ibnu xajarkaas saxiixu muslim 5 majlis buu ku akhriyey baa layidhi, waa kitaabka dhana saxiixu muslimka la yidhaahdo. 5 fadhi ayuu ku dul akhriyey. waxaa la yidhahdaa muddo 3 bilood ku dhodhow, 2 bilood iyobay yidhaahdaan, iyo bil uluskeed, 1/3 of a month, 3 dalooloo dalool, yacni 2 bilood iyo 15 casho wax ka yar oo uu dimashq joogay bay yidhaahdaan. 100 volume buu akhriyey bay yidhaahdaan. 100 volume ma akhri karaysaa? waa maxay? 2 bilood iyo 15 casho ayuu ku akhriyey baa la yidhaahdaa 100 mujallad, 100 volume. waxaa laga yaabaa inaa leediin sidee waxaan loo akhrinaya? horta ugu horreyn waxaad ogsoonaataa surcat alqiraa'a waa wax la barto. maalan qofka cusub markaa wax loo dhigayo waxaa loo dhigaa letters soo maaha, a b c d alif ba ta tha, erayaa loo dhigaa. markuu erayadaa qaybo suuraddaasi madaxa degto ayaa isku darkooda loo dhigaa al, yacni erayo 2 xaraf ka kooban. saasaa loogu soo wadaa. qofku markuu qiraa'ada baranayo xaraf xaraf bay ishiisu u qabataa. alxamdu lilaahi, saasuu wax u akhriyaa qofka cusubee baranaya. marka dambe qofku waxay gaadhaa erayada tani inuu maskaxdiisa dego. ishu markaa eray bay u qabataa. haddii qofka lasii traingareeyo markaasi 2 bay u qaban kartaa. haddii lasii traingareeyo 3 bay u qaban kartaa. haddii lasii traingareeyo 4 bay u qaban kartaa. xad bay ragga qaar sheegaan halka sadar in markuna la akhriyi karo ishu qaban karto. laakiin waxay u baahan tahay inuu qofku traininka qaato. iminkaba koorsooyin bay bixiyaan meelaha kan lagu baro qofka fast reading ama surcat alqiraa'a lagu baro. culamada tani say wax u akhrinayeen waxa kane waxay u noqdeen malako ilaahay u siiyey subxaana wa tacaala. walidalik alxaafid almuzi imaamka la yidhaahdo oo weliba la jooga baa la yidhaha alxaafid albarzaliy, kitaabka la yidhaha almucjam alkabiir. mucjam alkabiirku waa 25 volume, 60 fadhi buu ku akhriyey. 60 goora uu soo fadhiistay ayuu wuxuu ku akhriyey maxay? mucjam alkabiir dhammaantii 25 volume. alxaafid alciraaqi musnadu imaamu axmed hadda markii la takhriijiyey lasii balballaadhiyey waa 55 mujallo, 40 kun oo xadiis wax ku dhadhow baa ku yaal bay yidhaahdaan. ibn alkhabaaz sheekh la yidhaahdo wuxuu ku dul akhriyey 30 fadhi, 30 ballan, 30 goor buu kolba la ballamo uu ku dul akhriyey uu ku dhameeyey. yacni waxaad garanaysaa dadka kani wakhtigu qiimuhu ugu fadhiyey iyo qiraa'adoodu say surca u lahayd. surco qura maahay waxana u fahmayeen. ibnu catiya tarjamada laga qoray
qaadi ciyaad iyo ibnu bashkuwaan labadooda kitaab algunya iyo asila ay ku qorayaan. wuxuu leeyahay waxaa la tilmaamaya inuu leeyahay kitaabka saxiixu lbukhaari 700 jeer baan akhriyey. haddaad akhrido maalan risaalo uu qoray nin sheekh sacuudi oo cali alimrani la yidhaahdo almushawiq ila alqira'a kitaab la yidhaahdo, cajab baad u dhimanaysaa salafka wuxuu ka soo naqlinayo. waxaad arkaysaa bukhaari mid le 150 jeer baan dhameeyey oo akhriyey, qaar le 280 jeer baan dhameeyey, qaar le 50 jeer baan dhameeyey, qaar le 40 jeer baan dhameeyey. innaga qof mar dhameeyey maynagu jiraa? hal mar intuu akhriyey dhinaca ka akhriyay xagga ka baxay. iyana waxay leeyihin 50 jeer 60 jeer baa la dhameeyey. الشيخ السلفي الشيخ الله يرضى وحده سمعت ابن طاهر يقول waxaan maqlay buu yidhi sheekh ibnu طاهر la yidhahdoo leh kitaabka saxiixaynka bukhaariyo muslim weeyaan iyo sunanka abi daawuud 7 jeer baan gacantayda ku qoray buu leeyahy. intuu qoray ayuu iibiyey, markaasuu qoray oo iibiyey. waa volumiska kitaab dee waagii hore madbacadii ma jirin, susa ma ogidin. wixii caalamulislaami kitaab yaalloo dhan rag baa gacantooda ku qoray, iyagaa madbacad soo ahaa. wuxuu leeyahay bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud 7 jeer baan mid walba gacantayda ku qoray oo iibiyey. sunan ibnu maajana isaga 10 jeer baan qoray intii aan rayi joogay buu leeyahy, magaalada rayi la yidhaahdo. waxa uu tilmaamayaa abilfaraj ibnu aljawsi markaa laga warramayo taariikhdiisa waxay yidhaahdaan wakhtigiisa waxba muu dayici jirin. maalintii bay yidhahdaan ilaa 4 buug buu qori jiray. sanad kasta bay ku tilmaamaan 50 volume uu gaadhi jiray wuxuu qoraa. wuxuu akhriyay hadda ma aha, waa wuxuu qorayay ayaa sanad kasta gaadhayay bay leeyihiin 50 ilaa 60 volume. dhashiisii nin ka midabaa wuxuu yidhi waxaan arkay cumrigiisu wakhti uu gebagabo ahaa isagoo mimbarka saaran oo khudbadaynayoo leh katabtu biisbicaya haatayni 2000 mujallad. labadaydaa farood ee aa arkaysaan 2,000 oo volume baan ku qoray isagoo leh. 2,000 oo volume ayaan labadaydaa farood ku qoray isagoo leh. yani dadka kan qiraa'adu maalan ibnu manduur sheekha la yidhaahdo lisaan alcarab dictionarygan ugu weyn af carabiga ninka leh, waa dictionary aad u weyn 20 mujalladooda lisaan alcarabka la yidhaahdo. ibnu lmanduur maxamed ibnu mukaram baa la yidhaahdaa magaciisa. waxay yidhahdaan kutubta mutawalaadka oo dhan wuu soo ikhtisaariyey inta ugu badan. ikhtisaarku waa maxay? waa kitaab dhan intaad akhrido inaad soo koobto oo wax yar ka dhigto. kutubtu ikhtisaariye maxaa ka mid ah? taariikhu baqdaad waa 50 mujallo. waxaa ka mid ah taarikhu ibnu casaakir taarikhu dimashq la yidhahdo waa 80 volume. 80 volume buu intuu akhriyey soo koobay. 50 volume buu intuu akhriyey uu soo koobay. waxaa lagu tilmaamay mufradaat ibnu baytaar intuu akhriyey buu soo koobay. waxaa lagu tilmaamaa jaahid kitaabkiisii xayawaan. waxaa lagu tilmaamaa yatiimadii thacalabi adakhiira libnu basaam. intaasoo kitaab baa la leeyahay kutubta waaweyn ka mida intuu akhriyey buu dhammaantood soo koobay. wuxuu ka dhintoo gacantiisa ku qoray bay leeyihiin 500 volume. maaha wuxuu soo iibsaday kama warramay iyo kitaabadu gatay iyo meelaha wuxuu soo qaatay. kuwuu gacantiisa isagu ku qoray 500 volume oo gacantiisa ku qoray buu ka geeriyooday. idan waxaynu leenahay salafi lumma ama ummadatan dadkeedii hore wax akhris iyo qoris xadkaasay ka gaadhsiinayeen. qof quri uu 500 oo volume qori karo ama dhowr majlis dhowr goobood oo soo fadhiisto kitaab 3 volume ama 4 volume oo ku dhammeeyo. sidee wax akhrisku la ahaa maalan imaam albayhaqiy alxusein ibnu axmed albayhaqi waa kutubtan tirada badan leh ayaa waxaa la tilmaamaya abu sacd samcaani wuxuu ku tilmaamaya kitaabkiisa la yidhahda taxbiir fi lmucjam alkabiir. waxaa la kulmay buu yidhi bayhaqi oo xanuun ku dhacay oo 10 faroodba go-een.
xanuun baa ku dhacay markaa intanba waa la jaray gacmuhu way go-ayiin oo kafkoo quri u soo hadhay aan wax kale ku soo hadhin oo intuu qalinka labadaa ku qabsado kaaqidku waa haraggeera wax lagu qori jiray waraqaa wax lagu qoro intuu dhulka dhigto cagta ku qabsada buu yidhi wax qora oo far aad u qurux badan oo la akhriyi kara qora oo maalintii ilaa iyo 5 daaqa yacni 5 buu oo yaryar maalintii qora buu leeyahy waa nin faruuda go-an yihiin faruu way go-an yihiin haddana waxa uu qorayaa buu leeyahay maalin kasta 5 daaqaatin min alkaaqid buu qorayaa buu leeyahay taas waxay tilmaamaysaa culammadii hore iyo mowqifkoodu siduu ahaa idan qofka muslimkaa waxaa looga baahaya bay leenahay haddaynu rabno inaynu wax baranno haddaynu rabno ummadda inaynu kor u qaadno haddaynu rabno jiilashii hore inaynu bedelno haddaynu rabno dunida maanta jirta loolankeeda inaynu ka qayb geli karno inaynu baranno in waxna la qori karo waxna la akhriyi karo inay qiraa'adu qofka ka mid noqoto noloshiisa caadiga uu ku xisaabtamo in qof kastoo muslimi maalintii ugu yaraan uu akhriyo maxay hadday qur-aanka tay jis qur-aana u akhristo hadday bukiskiisa ama daraasaadkiisa qofka muslimkii inuu yeesho timetable wax ku akhriyo oo uu noqdo noloshiisa caadiga ah qiraa'ada iyo kitaabadu inay wax rasmiya ka noqoto waxaan uga dalleeya markaa dariskan oo dhami waxa weeyaan inaynu baranno wax akhriska iyo wax qorista iyo ku celcelinta rag qura maaha rag iyo dumarba saan bay ahaan jireen dadka muslimiinta hore saan baa wax loo qori jiray saan baa wax loo akhriyi jiray khatiib albaqdaadigaan idin tilmaamayey ayaa maka yimi markaasuu maka wuxuu ugu yimi gabadh ka mid a culammadii muslimiinta ee waaweyneyd kariima gabadh lo odhan jiray ayuu ugu yimi kariima bintu axmed almarwasiya waa dumarkii xufaad ahaa gabadh ka mida caalimada 100 sanay gaadhay may guursan waxbay baran jirtay ayuu u yimi kitaabkii bukhaari kariimiyana waxay ka qaadatay kitaabka bukhaari sheekh ismaaciilkii hore ciddii uu ka qaatay iyana sanadkeedu waa can ilkushmihiniy can ilfirabriy dabeetana imaam albukhaari ayuu u yimi waxa la tilmaamaa iyadana wuxuu ku dul akhriyey 5 maalmood ayuu saxiixu albukhaari ku dul akhriyey waa saxiixu maalintii hore ku akhriyey ayuu kariimana mar labaad ka tasxiixsanaya oo ku akhrinaya 5 maalmood waxaynu tilmaami karnaa ikhwatii fi lcaqiida culamadii muslimiinta ahayd ama muslimiintii hore nabigu calayhi salaatu wasalaam waxna ma qori jirin waxna ma akhriyi jirin ilaahi subxaana wa tacaala mucjiso wuxuu uga dhigay isagoon waxna qorin waxna akhrin in lagu soo dejiyo waxyi yutla la akhriyo oo uu dadka gaadhsiiyo in lagu yidhaahdo iqra awal waxyi ku soo degaa uu noqdo dabeetana muslimiintu way ka faa'iideeyeen oo uu dadka gaadhsiiyo in lagu yidhaahdo iqra awal waxyi ku soo degaa uu noqdo dabeetana muslimiintu way ka faa'iideeyeen waxyaabaha fukahaadka haddaan idiin akhriyo ee culammadii muslimiinta hore waxaa la tilmaamaa yani qiraa'aadka iyo wax akhrisku sida ay ummadda muslimiinta dhexdooda u ahaayeen wax hayru caadiya waxay tilmaamaan culamo wax akhris dilay wax akhris u dhintay waxay sheegaan culamo kutubi dishay fukahaadka markay ka warramayaan axad alculamaa'i naxwiyiin waxay ku tilmaamaan salaad jimco ka soo baxay dabeetana salaaddii jimce masaajidkuu fadhiyey bacda alcasar buu ka yimi baa la yidhi isagoo sii socda casarka dabadii ayaa caadadiisa waxay ahayd bay idhaahdaan xataa inta uu soconayo inuu wax akhriyo mooyaane inaan wakhtiga iska luminin waa masaajidka markuu soo baxay gurigiisa sii gaadhayo waddada inuu wax ku sii akhriyo waanu yaro dhagac cuslaa baa la yidhaahdaa isagoo wax akhrinaya oo dhexda sii socda
ayaa waddo yaroo luuqa faras ka daba yimi dabeetana wuu riixay god buu ku riday bay yidhaahdaan oo uu madaxa ugu dhacay maalin labaadiiba wuu go'ay waxay yidhahdaan wuxuu ka mid yahay culammadii qiraa'ada u dhimatay waxaa ka mid ah jaaxid waxay yidhaahdaan kutubtiisaa ku soo duntay bay yidhaahdeen dabeetana weydiiyey waxay tilmaami jireen ragga qaarkood imaam zarkashi oo kale intuu maktabadaha yimaado wax lagu iibinayo kutubta ka ammaanaysto ayuu kumamkan meelahan waxa ugu jiri jiray bay yidhahdaan waraaqay ku sidan jireen dabeetana intuu kutubta meesha ku akhriyo ayuu qoran jiray axad alculamaa'i naxwiyiin waxay ku tilmaamaan salaad jimco ka soo baxay dabeetana salaaddii jimce masaajidku uu fadhiyey bacdal casar buu ka yimi baa la yidhi isagoo sii socda casarka dabadii ayaa caadadiisa waxay ahayd bay yidhahdaan xataa inta uu soconayo inuu wax akhriyo mooyaane inaan wakhtiga iska luminin waa masaajidka markuu soo baxay gurigiisa sii gaadhayo waddada inuu wax ku sii akhriyo waanu yaro dhagac cuslaa baa la yidhaahdaa isagoo wax akhrinaya oo dhexda sii socda ayaa waddo yaroo luuqa faras ka daba yimi dabeetana wuu riixay god buu ku riday bay yidhaahdaan oo uu madaxa ugu dhacay maalin labaadiiba wuu go'ay waxay yidhahdaan wuxuu ka mid yahay culammadii qiraa'ada u dhimatay waxaa ka mid ah jaaxid waxay yidhaahdaan kutubtiisaa ku soo duntay bay yidhaahdeen dabeetana weydiiyey waxay tilmaami jireen ragga qaarkood imaam zarkashi oo kale intuu maktabadaha yimaado wax lagu iibinayo kutubta ka ammaanaysto ayuu kumamkan meelahan waxa ugu jiri jiray bay yidhahdaan waraaqay ku sidan jireen dabeetana intuu kutubta meesha ku akhriyo ayuu qoran jiray jaaxidkan waxay yidhaahdaan markuu si kaloo uga dhargo kutub garan waayey ayuu kuwa kutubta gada ayuu odhan jiray habeenkii iga kireeyaan meesha seexdee wuxuu rabaa intan caawa ah inuu soo jeedo isagu iyo buukskan akhriyo kirada uu kiraysanaya waxa weeyaan inuu isku dayo inuu buukska kan u akhriyo waayo matbacada ma jirin kutubtu way yaraayeen waa in kitaabka markaad gadanayso nin naskha intaad u geyso uu kuu qoraa waa uu qoraa markuu qoro haddana waa in sheekhii kitaabka lahaa ama ardadiisii sanadka haysatay loo geeya la tasxiixiya inaan wax khataa la qorin waxa la qoray inuu sax yahay oo editing dambe lagu sameeya kadib markaasuu noqon karaa bug la ictimaado oo la akhriyi karo waa ilaa kitaab laska qorqoro kasta lama akhriyaynin waxa ka muuqatay markaa dadka kani siday u dadaalayeen ama qiraa'ada ay ugu xoog badnayd ama wax akhriska ay wuxu siinayeen wakhtigan casrigan aynu nool lahay ilaahay wuu fudaydiyey aad bay u fududaatay waxaan sitaa kombyuutar yaro kuwa yararoo la isku laalaaba intaan leeg hal maktabadoo igu jirta 13,700 oo kitaaba ku jira waa hal library yaro ku jira oo laga yaabo 20 gigabyte meelahaasi inuu yahay idan maktabad hoolkan aa fadhidaan qaadi kartaad kombyuutarkaaga maanta ku sidan kartaa wala fudaydiyey أي كتاب ضباهته أيضا ما library كسو أما هن كرتا أما نتك كده حيل كرتا يسوي PDF أما وحكو دورك وقرن أي كتاب ما أنت ضباهته أيضا هيل كرتا أيضا الله شرح أيه وأتك يضوبنا ونتك وكتشره أما جامعاتك أونلاين كي هي شان الله عقير الله قادر منبر كنقطه أما كون فري جاي فري سوفت ويرز كماله كدوبينا كتشره أي فنك دوري هالنقطة maanta adigoo gurigaaga fadhiyo meel looga bixin ayaad muxadis noqon kartaa oo mufasir noqon kartaa oo lugawi noqon kartaa oo saynisyahan noqon kartaa oo cilmi noqon kartaa xataa mawaadda iskuulka lagu dhigto iskuullada waxaa ku dhigataan iyadoo duuban oo la sharxayo macallinkii sharxayo sabuuradda ku qorantay ayay ku jiraan nadka luqal ingiliisiya siba haddaad garanaysaa waad helaysaa ay class from class 1 ilaa iyo intaad ka baxayso أي subject كتيرة chemistry physics mathematics وحده أنا هذا English أو lecture كي يضربنا معلم كي يدي يوصل بردنا اللي بقرا يا بارك رئيسه
يعني وقتiga maanta la joogo qiraa'adii iyo kitaabadiiba waa la fudaydiyey waxaad helaysaa wax kasta oo qoran wuxuu doona ha noqdo أي masale maanta aad u baahato aad googleka ku dhufato waxaa laga yaabaa markaad iska dhaafto lectureska yarada iyo waraaqa yarada la qoro iyo less than more than 20 books inaad hesho masaladaa ka warramaya oo PDF files kaga dhex jiraa laakiin hamadii baa yaraatay dadkii baa hamadu ka dhimatay dadkii baan rabin inay koraan oo wax bartaan dadkii baa noqday u qaatay inaan waxbaba baran karin waxa laga doorbiday boodbood iyo cayaar iyo waxaan qiimo badan lahayn umamku maanta marka la qiimeynayo say u kala horeeyaan waxa lagu qiimeeyaa aqoonta say u kala aqoon badan yihiin waddamaa jira maanta dunida ugu horeeya oo aan waddanadoodu resource ba lahayn jabaan maxaa resource yaallaa nothing resource ma leh laakiin aqoon bay leedahay aqoontu iyadaa resource markaa haddaad aqoon leedahay adaa ah resourcekii rasmiga ahaa dariskan markaa dantii laga lahaa inaan u soo koobay wuxuu yahay inay barataan in waxna la akhriyo waxna la qoro in wax la akhriyo waxaad akhrideen culamada muslimiinta hore waxay odhan jireen qoraalku waa dabarka cilmiga bay yidhaahdaan xoolaha geela haddaad taqaanin dee si aanu kaaga lumin waxaa lagu xidhaa dabar iyo seetiyo shakaal xadkaan geela lagu xidhxidho waa la xidhaa si aanu kaaga lumin cilmiguna si aanu kaaga lumin waa la qoraa waayo cilmi kasta aad maanta fahamtay sanadkii hore waxaad iskuul ku dhigatay haddii maanta lagu weydiiye waxba kama xasuusinid markii waad fahamsanayd waad wada garanaysay laakiin maalintii imtixaanka aad ka baxday bay iyana evaporation qaadatay ayuu kaa duulay wixiiba haddaad se wax qorato waxa la qoro mar kasta waad raajici kartaa waad ku noqon kartaa wax rasmiya waxaan kusoo koobaya markaasi waxaa laydinka baahan yahay inaad waxna akhridaan waxna qortaan sala allahu calaa nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi wasalam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin